عليه السلام إنه شارع من حافظ على 12 ركعة قفكي إلالية أو دورة لبية ركعة ضد أو سنة الرواتب ليراهو إلهي يقول جنة يقول صحابي ما نقول بمرك قولي با إلهي سبحانه وتعالى كيري كرتا جنة لبية ركعة وحوي لبركعة أو كهر فجرك أفر ركعة أو كهر الظهرك لبركعة ظهرك كدم بيسه laba ragco oo maqribka ka dambaysa laba ragco oo cishaha ka dambaysa 12 kaas weey hadii duhurka labada ragco ka dambaysa afar laga dhigana 14 ragco bay noqonayaan casarka sunna raatiba oo ka horeysa ma jirto ama ka dambaysa laakiin kolkolka qaarkood afar ragco ayaa laga hormariyaa marka salaadahaasuna waa rawaatib waxa kale jira salaado furan oo iyaga يعني وقت كستبا قف وقت يدا اللي سكر يبي موياني ومركب الرحض يصوب بحيث مركب الرحض لعيسو وقت كهر رئيس الظهر كحير وقت يدا سبحان كأهين صلاته أنا ريبانين وتكن كرقفكو صلاته مهم سن أو مركي واجب كلا صوت تجا وحكم إذا صلاة هبين كي سقط الدحى وحكد ما يلا تكده أو صلاة الليل كأه صلاة داس وصلاة أو فضل بدن أو صلاةها وحي كالصهرة صلاة واجب كاه فرل كاه وحي كالصهرة وحا مهم سن أو إلهي وجه عليها صلاة هبينك اللي تكذو قلنك صدام هبينك صدح قيبض مرك الله قيبيه قيبته قدام بيسا صلاة اللي تكذو أيا وفضل بدن النبي عليه الصلاة والسلام نساس النوشيغي أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أو صلاة في جوف الليل صلاة هبينك اللي تكذوه صلاة وفضل بدن محي كالصهرة صلاة فرالك وحكا أجره صلاة سنوين سيدا مثلا صلاة ضحى oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofku 360 xubnood jirkiisu inuu yahay xubnahaas mid walba maalintii sadaqa in laga rabo markaasay saxaabadu yiraahdeen rasuulka Allahumma 360 sadaqa ama maalin walba bixin karnaa marka wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badan baad sadaqada ku bixin kartaa waxaad ku bixin kartaa macruufka inaad farto munkarka inaad reebto subhanallahi inaad tiraahdo alxamdulillah inaad tiraahdo allahu akbar inaad tiraahdo waxa soo dhan waxa weeye waa sadaqadaas baad ku bixin kartaa intaas oo dhan waxa ku soo koobaya buu yiri laba ragco oo aad tukato duxada ayaa sadaqadaas oo dhan 360 ka xubnood ka gudaya laba ragco oo duxada ah marka duxaduna waa waqtiga qorraxdu ay xoogaa soo baxdo يعني قرح صباحا laga bilaabo marka ila 20 daqiiqo wixii ka dambeeya ayaa marka duxadu ay socotaa ila ay qorraxdu aad u kululaato oo barqa kulaylka ay noqoto marka nirguhu ay agagubiyoodaan sida xadiiska ku yimid nabiga kaleey salaatu wasalaam xiina tarmidu alfisal waxa kale oo jira salaada iyo salaadaha sunnadaha iyadana weysada markuu qofku weysaysto inuu ku tukado wixii Ilaahay u qoray laba ragco afar ragco lix ragco wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qoray inuu ku tukado iyaduna waa sunno wanaagsan oo waxay ka sugan tahay saxaabada qaarkood nabiguna kaleey salaatu wasalaam uu u qiray salaadu marka waxa weeye albaabka ugu waaweyn albaabada ugu waaweyn ee jannada laga galo waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo caruurta la faro reerka la faro ninka iyo xaaskiisa isu kaalmeystaan isu kiciyaan salaatul leylka salaadaha faralka ah ragga waxa looga baahan yahay salaada waajib ahaan masaajidka inay ku tukadaan hadii kale dambi bay ka qaadayaan iyagoo masaajidka tagi kara hadaanay tagin dumarka waajib kuma aha marka iyaga inay masaajidka tagaan laakiin gurigooda ayay salaada waqtigeeda inay ku tukadaan ay waajib ku tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala salaadahaas shanta ah ee maalintii iyo sunnooyinkooda ka sokow waxa jira salaado gaar ah oo iyaguna waajib ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sameeyay waxa kamid ah salaada jumcada maalintii usbuuciiba maalinta jumcada waxaynu tukanaa salaad gaar ah oo ka duwan salaadii duhurka aynu tukan jirnay booskeedina gasha waxayna leedahay jamc labaweyn oo la isugu yimaado masaajidka waxay kaloo leedahay khudbad la khudbeeyo dadka muslimka maalinta la wacdiyo waxayna leedahay maadaama khudbadaas jirto loo soo gaabiyo salaad laba ragco ay noqoto waana salaada kaliya oo maalintii jahriga ah salaadaha jahriga ah waa habeenkii maqrib iyo cisha iyo fajr laakiin salaada
jumcadu iyadu jahriya weeye iyaduna oo kor baa loo qaadaa qur-aanka loo akhriyaa waana 2 ragco waana maalintaas bay khaas ku tahay waxaa kale oo jira salaado kaleeto aynu tukano oo iyaguna fardu kifaaya ah muslimiinta haddii qaarkood ay sameeyaan qaarka kale ay ka dhacayso ama sunna la isku adkeeyay ah oo waajib ah waxaa ka mid ah salaada janaazada qofkii muslima oo dhinta waa inaan ku tukano 4 takbiiro salaad janaazada la yiraahdo oo aan iyadu rukuuc iyo sujuud midna lahayn laakiin 4 goor ayaa la takbiirsadaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kadibna waa la salaamaystaa meydka loo duceeyaa faatixada la akhriyaa kow kadibna nabiga kaleey salaam ayaa lagu saliyaa kadibna waxa loo duceeyaa meydka rag iyo dumar wuxuu yahay iyo ilmo kadibna waa la salaamaystaa 4 takbiiro ayay tahay iyada waajibkeed waxa kale oo jira salaadaha leeyno sunnayay salaada hadii qorraxdu madoobato ama dayaxu madoobaado iyadana salaatul khusuf ama salaatul kusuf ayaa la tukadaa waxa kale oo jira iyadana iyadana leeyno jeedo salaada roob doonta leeyahay oo hadii مثلا dadkii muslimiinta aha abaaro iyo dhibaatooyin ay helaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala u cudaan ilaahay subhanahu wa ta'ala u cararaan xaqiisa u cararaan banaanka u soo baxaan kadibna ay sidaas ilaahay subhanahu wa ta'ala 2 ragco ugu tukadaan imaamku u tujiyo kadibna ilaahay baryaan inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala waraabiyo waxa kale oo kamid ah salaadaha iyadana waqtiyada gaarka ah loo sameeyay iyo munaasabooyinka gaarka ah salaadaha ciida oo 2 goor ah sanadkii iyaduna salaada markii ramadaanka aynu ka baxno oo bisha ramadaan inoo dhamaato salaada ciida ramadaan baa la tukada waa 2 ragco oo mid horena lagu takbiirsado 7 takbiiro mid dambena 5 takbiiro oo ka baxsan يعني الله أكبر صلاة وقت قال تكذو وحكى له يدنا صلاة عيد لبعض أي تهاي وقت عرفة أما ما أنت بشا عرفة طبعا أي تهاي وعيده ما أنت عرفة حجيد ويستاجان كدم بيسه ما أنت سنة وعيد لبعض أو إنه تكنه صلاة كلته إلهي سبحانه وتعالى إنه جدية النبي عليه الصلاة والسلام إنه سنة لجعلها وحكم ذا صلاة تراويح ويدنا قيام الليل كلام نقطة أو قيب كم ذا لأنه قيام الليل وحي عشاء كدمية أيوب بالوضاء إلى فجر كأيون الصعداء هبينك آخر كيس أيون وفي عيه مركا salaadaas taraawixda la yiraahdo muslimiintu jamac ahaan bay u tukadaan waana arrin ka sugan nabiga kaleey salaam iyo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim marka iyaduna wixii la tukadaba koow iyo toban baa ugu wanaagsan habeenkii salaatul leylka sidii nabiga kaleey salaam uu badnaan jiray Aisha radhiyallahu anha ay sheegtay laakiin hadii laga badiyo iyo hadii laga yareeyaba waa la heli karaa sababtoo ah waa un salaad tatawuc ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaanayo marka koow iyo toban ayaa sida u badan ahayd noloshii nabiga kaleey salaam laakiin waa la tukan karaa 13 oo xabada witr tahay mid witr tahay waa la tukan karaa inta ka badan waa la tukan karaa 23 waa la tukan karaa dadka qaarkii 43 bay tukan jireen marka iyadu waa waasic alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala waa noo waasiciyay salaadahaas waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala qaybahaas kala duwan iyo waqtiyalka kala duwan iyo xaaladaha kala duwan in ilaahay loogu dhawaado waxa weeye يعني مهمة يكون حرنانت إلهي سبحانه وتعالى أي أولى ضهي صلاة مركة ولا ليال ووحى أبونا أكسن عباداه إلهي سبحانه وتعالى النوس الدجي سيد النبي عليه الصلاة والسلام أوشغي وإفتين صلاة قفكي عن صلاة الله إن إفتين مله نرشي سنة إفتين مله قلبي سنة إفتين مله قبري سنة إفتين مله آخرتي سنة إفتين مله إلهي سبحانه وتعالى قفك أوسيي صلاة ونأكسنه إلهي سبحانه وتعالى قلبي سنة ونورساء قبري سنة ونورساء نرشي سنة ونورساء عملك سنة ونورساء صراطك ونورساء سيد النبي عليه الصلاة والسلام ويري والصلاة نور والصلاة نور صلاة ونور وإفتين إلهي وحكى برينا إنه إفتين كاس نصيبك أبوين إلهي سبحانه وتعالى نغسيه نجعل يسيه هو يعني أوجه أو ضرياله أو إلالينا أو دورنا إلهي سبحانه وتعالى ونغدقه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.